بسم الله الحمد لله. ولكن ما دونيسا إنه إلهي سبحانه وتعالى كو أرزاق عزو بلا عشيرة، عزو بلا قبيل بلا ما أرتي دتكو قرب يا عائي فامل لأنت إنه هي عزيز كاديكو قف عزة هانر إشاف كنور غنى إنه إلهي كسيو أو غني نقطة بلا مال أدقون الشر إيه قد عديع إيه أكون يسحوك جرين إيه إن دتكو أيكو احترامان أو ما أرتي لجو وناجيو أدقون مامل إيه مدحنمي وزارة من أنا قعنتكو هين. من أراد عزا قفك دوني عزة بلا عشيرة، من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وجاهة بلا سلطان أيجري علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إلهي سبحانه وتعالى وجهس فيها النورية وحا أجري قفك دوني إنو إلهي عزسي أسوى مركز عشيري سي خبيل كسي ريركسي سندبيا عيني إسو مركان غنى إلهي وكو أرزاقو أسوى مركز أنا أكون دي سي إسوحبو كجرين إسلام مركان إلهي كو أرزاق جاه إيو شرف إيو ماموس بلشدة دحذي دا إساقو مركاسي أنا نحل أمدا أن أهينين أو نكربت عسلو دقيني لكن أمدو يعزين إسو فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. هكذا حبحو ذلك إهانة أي لاذا هاي إند إلهي كن نقطو فلاقو إند إلهي كسو رجيستو فلا نبدا ذلك إلى أنت تكدح بحظه وحد أبحذا إلى عز طاعة الله إن أحد كيكو أبوري أدوه كان سناتو أو اسكو ديبتو ولكن قيمة بدنو إلهي سبحانه وتعالى أستقع يا بلان قاضي أوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون في سورة النحل. بعض المفسرين مركي آياتها فسرين ابن عباس إيا ما أرتي من جرير الطبري إيا ما أرتي تفسير الجلالين إيا قرطبي إيا كل قوت ما أرتي مجاهد إيا قتادة إيا ما شاء مركي يفسرين لما قول بأكل سارين الحياة الطيبة. إلهي مركو روح إليه من عمل صالحا وفرس قف كستو لي ماذا قفكي إلهي بلمه ولقري لي ماذا من عمل صالحا قفكي عمل صالحا لي ماذا oo markaasi min dhakarin aw untha dadig iyo lab ku rabaa noqday man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min hal iyo qofkaas qofsna ilaahay ku xiran subhanahu mu'min ah inaad qof tahay amal salih la yimid iimaan laga helay ilaahay wuxuu li qofkii labada sharti laga helo oo markaasi aad raacdo kitaabka ilaahay sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku ballan qaaday hayatan tayyiba al hayatu tayyiba maxay culimadu ku fasireen qaarkood waxay dhahaan waa ar-rizqul halal at-tayyib qaarkood waxay yiraahdaan al-qanaa'a weeyaan waa ilaahay inuu qanaaco ku siiyo qaarkood waxay yiraahdaan bal waa jannada ilaahay ma artay xaatada tayyibada ah waa ta jannada ilgu dambeyn doona isku soo duuduuba waxa weeyaan qofku intuu adduunyada joogo inuu aziis ku noolaanayo hanaa iyo raxaa iyo barwaaqo iyo itminaan iyo deganaansho iyo ma artay inuu ku noolaan doono qanaaco xaq qulubta ah inuu ku noolaan doono weeyaan إلهي أنت كنت مسلم أورن فلا نحيينه كن نولين إله كدارنا فلا نحيينه نولين أو نولين حياة طيب حياة قرح بدن وطيبة ونكسن أنت كنت معها مركو آخري معدني ولا نجزينهم كو أبا المرنة أو كو أبا المرنة أحسن الذي كان الدنيا وحى وشمي وحي ونكسن إله كو أبا المرنة سبحانه وتعالى ذاتك وسترين كأمريكا كقريان markay ka qorayaan live ka wanaagsan ama live ka quruxda badan waxay ku tilmaamaan ilaa 60 bay gaarsiiyeen laakiin afar ba ugu miisa waxay soo qaadaan waxay ku leeyihiin in uu qofku mani helo waa mid kamid 60 ka arrimood inaad lacag hesho waa 60 ka arrimood mid kamid ah waxyaalaha soo qaatay waxa kamid ah qofku in uu qof uu jecel yahay ula nool yahay kamid ah maanta nolosha macaan waxa kamid in wax uu markaas aaminsan yahay uu jiro waxa kamid ah gool marka inuu xaqiijinayo uu jiro waxa kamid ah qofku inuu bulshada ma artay qiimeynayo uu sharfayo waxa kamid ah in uu dadka ma artay sacrifice u sameeyo waa ay badan yihiin walaalkii hadaad noqoto doonaysan aziz noqoto macaasida ilaahay baa dadka duleysay macaasida ilaahay ka dhaxbax falyakhruj minha waxaad ka dhaxbadaa min dhulli ma'siyati Allah waxana u baxdaa ila izzi ta'ati Allah hayaka Allah wa bayyak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.